manaalay waxaan uu ku soo diray ninkan waa fulay xuno xaar weyn beenala ah والله وافلي صور بوساق هذي بوليس أو صور ساق هذا مركز سوري أنا خفت من أنا أقول بنا مودي طلعوا من وين نوم anaga sarasni bulku wallahi والله كل ما يهدى والله سكان خفت كسمية طلبات من مسكين تذهبوا يا عذر دمرك وعرورته كقادم وأنا جنوم ليه مركون أنتوا ورقة نص صورين اللي أنا خفت من كعدك والله بالله والله ورباهين تدلقوا لنا ودياري ده السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ده حالي وأجيت لو نك المقدار يهين نوعي لسه حمل داهر ما قبل كرنا لسوقته عنو كم قناع ذهب الله بي واسكو بيد واسكو انفورميشن marka daabay inaan booliska reportka booliska sameeyno iyo inaan warbaahinta ku ballamino inaan lawyer ku qabano intaasay kiis ku soo dhamaatay xal kale waa weynay ninkaasi waa naga daba wareegay ilaa galabta waa la isku buuqay Soomaaliya mar gacanta ka taagtay ninkii kale reexsan gacanta ka taagay dadka inaan qancinaa xaqa u lahayd anaga dadka aan tusino qofkaan dhibka say xagiis ka socay ma faham صح marka hawshaas waa gudagaleynaa bari waa jimco isniinta ayaan ku sameeynaa reportki ma fahamtay aan qabtiga baxleen hadii ilaahay yiraahdo marka kuba oo wariyaasha dalkan waa ku soo xiraya marka qof turjubaan lagu diyaarinaya adaa u sheegi doonto dhibkaaga haye labadiina waa lagu soo xiraya marka maxamed daawud telefonkayga maxamed daawud xogso dadka laba telefoon ee laga xiriiray maamuul codka ka gogo'ay telefoonada maamuulka laga xiriiray ii soo dir okay informationka codadka sawirada taxi message-da kulli dhan waan ku soo dirayaa daayiro waxa kalan helnay soo ogaana maanta in wiilka gabadhan ay dhashay oo reer gaala la nool yahay addresskii baan soo helnay aabaha aanu la joogin yani waxaan kala helnay nin turjubaanka ah oo Holland aad garanayso ka tagay Holland xalana turjubaanka dhex ah waa soo helnay lawyer kala waa television weyn waan soo helnay oo dadka kala dhuma isku raadiyo kulay Holland laga leeyahay anu ma garanayo adiga iga yaqaan Larsen ma leeyahay nin leeyahay iskale akhbaaraadkaas oo dhan aan keenay marka xal hadii tolnimo la waayay Soomaalinimo كله والجو صدرة يعني هل وأرنت عن إنا فسحنا أو يعني سوّر هذا كل الجو صدرين قناة. ما هذا كاسوس كذا ما أنا دبت بحتى أمجل أي واحد يعادو ولا حاجات إدرس أنا دبت بحتى أقول يا لماي وحشمي مركل أريماس كلام هذا صوته أيجا إنترست جوديهين إذا كيدنتين نتين إن علمي نهاصل لما يستان حديدي الماء هاصل لما أنا محكمة عن هاي si cadaalada ama taqaana u diiwaan galeyna marka ururkeena oo shaqtinka aan leenahay ayaa kiiskaas ku dagalayaa in duleer aan fahmo harassmentina wuxuu ku bilaabay manaal iyo Leila Afro wuxuu u diray hal sawir oo qoraal waxaan isku qasaarnaa qof wuxuu qaaday asaas qasaar waa iska been xasaas iska been abi oo meel fog jira ayuu sidoo iyaga u bajibislay u bajay laakiin anagu yaanayde waa been sheegaas ka yar ما قرنيسا دايرو نشي قاله اللويرة أو جوج هلن ما قرنيسا واقعنا وحصل لو باني اللويرة كان أوفي على لو قبل وحصل لو باني إسكت أخذ أنا هوش كشقينا على شيء كشقينا وحياة قالوا ويكيه هلام بكيس إنه أنا قال إياه بكيه هلام صبته قالوا ذو قالها هذا لكن هو يدو احترام أنا فهمت ninka lawyer-ka aan la xiriirnay wuxuu noo sheegay in maxaa la yiraahdaa ay gabdhahan u kala imgareyn karaan in carruurta laga soo xaday dawladda Holland ayay dacweysan karaan oo maya sida loo soo qaado saxda ay sheegay xitaa cadima laakiin in loo diiday waxa xatooy ku noqonayba marka hore ayay haysay ayay laga soo qaaday wayna ogeed laakiin ilmaheedii in loo diido lama hadli kartiin taas dambi ah midda kale waxa dambiya saxiix ma laga soo qaadin oo saxiix lagama hayo ayaga سفارة لما جين وأنا هنا عدين عدكي سجوا قرنية إن أولياء وسلوا جين مكان المها قاعدين أولياء لكن سفارة ما كان يسوق عايز المهم الله أرهم بس على وسوق قاعد كنا إنه ده المها هايد وين متى إنه ده المها هايد وين أوبشن كلام جرو هذيك الصحيح اللي سجب بعين marka taasina dimbi noqonaysa haduu ila way dhimatana dimbi way noqonaysa way nool yihiin haduu dhaw waayna cadeyn la hayaa soo qiranayo inuu ilmuhu
daahiro qofka hagaaji kowdha ilmahani wuxuu ninkaan u qoray hooyadooda حقاقة وين سوي سوي سفي عادي أنا مقلنا وحقاقة غالي ana xaqiiqi miya ma qaan meesha barayo حقاقة ninka ilmaha wuxuu u qoray hooyooyinkoodii inay dhinteen isku hooyuuna ka wada dhiga ma fahamti inay kala hooyihiin xataa ma sheegin ilmaha saas leeyahay maskaxdayda ما sidaas weeyaan soo isha ka tuurtay xataa wiilka yarka oo reerku u dhibay xamar baa laga tuuray dhaqan celin hooyadiisoo xamar joogta ayaa xamar oo wiilka muddo lagu soo hayay dib baa loo soo celiyey cadeymahaasoo dhan waa keeni doonaa insha allah waay horta dhammaantii waa islaamay meeshaan de arrinta meesha u socotona kolba waa u jeedaa hadda kamaan xumeya aadaan ugu faraxsannahay meesha u socoto waa la jiraa tihiin xasan haddii uu dad gabdho maaragtay iyo dad reemiyi iska ahoo iska tabar yar dadkoodii ayagoo u kala lumiyey dhegna uu shalaq u sii diiday idinkana inuu ku daro hadduu ku talagalay midha awooddiisuu maaragtay ka arkay waad arki doonaa meesha uu waxgaarsiiyo waxay la tahay markan waa la iskala tegey dadkii uu gumaysanayey dad ama ka baawur weyn ama la baawursanan ama wax badanba ka sarreeya ishayaan nin kastaana maaragtay xanjihiis iyo xooggiisuu saaran yahay wixii uu ka helu leeyahay aad kala heshaan duulaankaas idinkaa ku maqan idinkaan ku ognahay idinkaa idin dirnay xasan ninka la yidhaahdaana kuma uusan fekerin noloshooda iyo maaragtay dadka uu hayo xaaladahooda midna kaga fekerin hadduu maqlayo haddeertaanba maaragtay ha si fiican hayo maqlo dadku inay waalid iyo ehel iyo xiriir iyo tol leeyihiin ayay ku fiican yihiin ilaahay geed gubata ka baxay nagama dhigo xasanan xigaaliyo aqoon xidid iyo saaxiib ee asagana xisaabtameen aqliga lagu xoroobahay ilmo waalidkood laga xanimay xero ma buuxshaani haddii uu dareemayo oo ruux u naxayo uu yahay dadka uu dhalay intaan ma gaarsiiyeen iyo in ka sii badan laakiin waxaan u arkaa anugu hadda maaragtay ruux duran inuu yahay oo aan ka fakerayn noloshooda iyo aayahooda dambe midna aan ka fakerayn laakiin ka fakerayo siduu gabdha ula xifaatami lahaa wax danahuna kuma jiraan ha ka waantoobaan dhihi lahaa waxa uu ku jiro haddii aqli ku jiro idinkana ilaahay ha inla garab galo aakhiriya adduunba xorooba ilaahay kuwuu xoreeya ilaahay hayn ka dhigo qof inku haysta iyo qof maaragtay inkula dhigana ma jiro sida adinku aan hoggaanka ugu qabateen gabdhahaas masaakiinta laakiin maxamedow anigu waxaan ka shakiyay yaabkan ku maqanahay yacni dadkan sidan markii hore kow iyo diinta iyo sida loo dhaqmayo wallahi shaki iyagaaba shaki iga galay shaki baaba iga galay waa dad nooc kalaabo shaki baa iga galay absolutely dad aan ku tilmaami karo iska daa dad diin yaqaane dad xitaa damiir in yar islaamnimo caadilnimada meel kama soo dhisto ya aniga weligay qabiilkayga dad saas oo kale kuma wallahi daayiro shaki weyn baa aniga iga galay reerkan ninka inaagta isqaba subxaan allah waxaan kaloo ka shakiyey ninka ama uusan xor ahayn ninku ama xoog lagu maya haystaa fi shay waxbaa jira caadi maaha horta caadi ma jiro yacni dad saa u damiir xun oo isku raacay inay hooyooyin sidaa u dulmiyaan oo iyo indha adoogooda weliba maala yacni kula soo hortaagan oo dhinac kastoo aad kaga wareegto dhigaya haddana diinta kaaga horeeyo adiga xadiisya kuu daliilinaya nolosheed ma arkin daahir adu wax kale ka sheekanaysaa anuu shaki weyn bay galay waxaan kuu sheegi raba manaaley wadaad bay gabadhan waa wadaad kolley inay qur-aanka iyo idin dhigi jirtana waa la sheegay maclimad bay noo ahayd maclimad qur-aan oon dhegaysan jirnay adniyow muxaadarada adduunka hadda ka horna waxay isla hadleen hana abuukar baa gasha kiiskan dahabada tan ayay wacday waxay tiri walaalay ha noogu yeerin gaalada way barisay dahabo markii iyo cadar labadaba markii kolkay la hadashay kabacdina waxay soo dhejisay hana abuuka nagala hadla kabacdina iyo tiifiyada naga joojiya ilmihina waan kula xarisiin doonaa haddii ay gabdhihii taa sameeyeenna way khiyaantay iyadoo oo axaadiista iyo qur-aanka yacni kitaabkii sunnadaba yacni u isticmaalaysa 5 daqiiqa bis hala ii ogolaado aad ku dhegaysataan codka maad ii ogolaanaysaan dahaba sida intuu daar soo noqon sida daar soo noqonay waxba u reebin sida niyo sida waxba ha reebin sida ha kuwiina inaan kuu soo diro waa codadkan inkastoo codadka dhan qolka dhan ay iga googooya baa ha kuwiin waa inaad qolkaada geysaa oo qolka dhan
aan fasax lahaa geynayna mid kastaanu geynayna subaxaan falaqeynaa durkaan falaqeynaa hadda sii daa in ilmaha weliba aan soo calaalanayo barayo horeyna u baray oo ilaahay og yahay inay ilmaha aan aniga marka arrimaha soo dhawaab intaasaan ku dhahaa hadalkay waa intaas waxaan weliba kaa codsanaa oo mar kale kaa codsanaa oon ilaahay dartiisa ilaahay wuxuu dhahay ومن يتق الله يجعل له مخرجا قفك لك بخا إلهي مخرجا يغفران ويرزقه من حيث لا يحتسب لا يلوسن قرنين أو سنوين إليك أرزقا ومن يتوكل على الله فهو حسبه قفك إلهي تلوى أدبك وقف لي وكافرا أنا مركمات اتصاق لي وحوى حفيرين ونذكر أنا قام سيدوك لك إنك ساق لي قد عبده وحال وحاد ربطه oo markaati aan diro u yeelayn oon ballameeno aniga iyo adiga iyo daawa cali shiraac ayaan mujtamac ilaahay u yahay hortooda ku shiinaya aniga ilaahay hortiis imaanta qiyaamada ilaahay ugu dhaqaabo markii waa soo gabagabeeyey markaaga waaye waan ku dhegeysanaa si fiican weliba kuu maqlaa soo daa markaad iga naxay horta ubax maxamed aniga shalay imaada baran daraadna imaada baran muddada aniga jibriil iyo iqra 7 sano iyo 6 sano ayagoo kala jira badaxa oo baawar lagu saaray waa la socday dardaarankii cabdiweli ciise wuxuu ahaa jibriil ha isku dhihin anaa dhalay adeer aanu ahay dhahal hadii kale arliga shabaaba joogayaa lagu xiray ma fahantay nin 6 sano asoo oo abtirinayo oo gabadhoodii abtirnada lagu keen intaan hoogaay oo rafaadaan ilmiga laba jeeraan jabta marna markii la isku kayduway ilaahay maceen ilaahay maartay farajii furay anoo tabcaana oo sakaraad oo xaalkeega ilaahay og yahay inta diyaarad ka raacan calaal u dibay nuur ciise aan tagi adiguna gorgorta ku nagama dhaxeeyo nin leeyahay nuur ciise wuxuu yiri maxaad raadinaysaa markii la yidhi wasaare xasan oo ilmiya raadinaa aniga soo ma dhali markaas meeshii aad dhigta waa ogad intaad dhigatay yaa meel maa dariiqa dhigatay yaa maraga marqaati waxay leedahay iqro in la waalidkiiga qaaday hadda noolyihiin aabbahay maalintii kale ay nooshahay jibriil asagoo 2 sano inay 2 bilood ka dhimanto male oo noola yaqaan inta uu leeyahay islaamku way la yaabaan maxaa sidee leeyahay anna nafteyda aanu dhaqtiyaan anigu way aamin u geystay adigoo maaragtay ilaahay hooyaha aad oo aan galay hadalka dhageysaa iga dhigo abriya yani anigu hor u soo faqin waxaan ku dhahay wax wanaagsan ka tagna waxa soo socdo waxaana wax soo socda inay gala hadasho waxa soo socdana waa ka hadlaa wixii hore la ii geystana waa ku sheega ubaxay inaan ilmahayga anigu dhalay oo 9 bilood wanaaga raba hawariya way dhigeysto horta hal saaca ku dhigeysana wallahi ma kuma sheegaan ee ka badanba laakiin wixii tagay ha igu celino furiya ka codsana waxa soo socda aan ka wada hadalno kaasa fiican waxa soo socda horta qofka hadlaysiyaa waay ma fahantay waa naagtii diinta ku qaraabanaysa ma naagtuu qabay xasana xaq umuusalahay adiguna waa ogeyd inaad ilmahayga u hoogay oo u rafaaday oo u balaanbalay oo meel walba aan cagta dhigaan ku waad ogeyd hal maalin aayadda saas u taqaanaa xadiiska saas u taqaanaa kalaanka rabbiga saas ugu hadle hal mar ma ii xasuusan weyda inaad tiraahdo xasanow gabadhan ilmaha hooyada u taadna waa walaasha anna hooyadii labaadaan ahay aan la hadal siino ubaxay ma garan weyda saas adoo ilaahay diinka kuu baray oo cilmiga ilaahay saas kugu shuba kaa su'aal fiican baad weydiisay wallahi hal mar xasuusan weyda diinkaada saas u dalbalayda caawa hadda ka hor telefoon baad ila qabatay waxaan ku ruuxay waa daawo cali shiro oo iqdiya jibriil dhashay markaasaa tiri waxbarashay jiraan kamana hadli karo ninkii dhala haysta dhageyso haddaan ku soo wici lahayn xitaa wax dhan ahaaleen ubaxay anigoo asxaan la iima falin 2 jeer ilmahayga janto waraa wiilka ikeen waraa ilmahaysi 2 jeer aniga ilmaha janto
هم قد قالوا استاذ كوري انت عندك تقصنا فمن كان كدش او ولا كدش ادغنا مدامية ما يهدمين سياده وقتها ما رجل منافق ما ديدي هذا الكقاط او وحي لو شيغ دبك لوgu shuba xasan waa kaaga dhaqan u reewaan kaaga aqoon badana ma fahanti hadda waxa leedahay ayadii soo qaadatay akiisadii soo qaadatay kalaan ilaahay soo qaadatay kalaan kale sax aad uga jawaabto waa ku saxan tahay waana aad kaaga mahad celina inta caawa wacdi aan ka siiyay Soomaaliya garan shala galaba u dambeeyay wuxuu yiri aniga hooyaday waa tan u hooyay maxaan ka biyan ku hooyay bal waxa aan ka biyan aan ku hooyay ishe hawreer ma waxa ay la korkortamaysaa wiilka wuxuu ku dhahay ma ay la korkortamay wiilka yaa geliyay wallahi ilaahay baa ka sarey wari waxa lumeen kan fiis wixii ka soo go'ahay ani wari waxa lumeen ilaahay baan umar qaadi kashana afkayga aan u kala furin ilaana waxa soo dhihin الله بقى مركاتك يوم كوكو هذا إلهي إلهي أنا وين تقول كلام إلهي مستقبل كارمينا كون هذا الله هذا وحسون رادي وأنا إصاب قبطي صح إلهي أنا وقتي ما شيء سكوت إلهي بكل علمنا هذا المحاد ضنا هذا إيه الضن محاك وحل الناس وأساس شيء كلامه يعني لكن ما أنت ضايع سورة